cabdi ibraahin cabduble oo loo garan og yahay mujaahid la meerayso oo ay dhowaan xabsiga u tahaabeen ciidamada booliiska ee Soomaaliland kadib markii uu dhaliil u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu riyadiisii dib u helay kadib mujaahidka oo xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay magaalada Hargeysa kadib markii uu xabsiga ka soo baxay ayaa waxa uu waraysi gaar ah siiyay telefishinka bulsho waxaanu ka dareen celiyay xarigiisa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay sababaha uu xarigiisu daaran yahay xarigaygu wallaahi wuxuu ii kordhiye mooyaane waxba ima yeelayo waanan ku kalsoonahay kana hadhi mayno u dhaqaajin mayne fulaadhoosha ka adkaysta waxaan muddadii aad xidhnayd aad ku xidhnayd xabsiga Madheera sidee bay kula dhaqmeen ciidamadii ku taxaabay xabsiga intaasi aad ku sugnayd wallaahi kuwii maxkamadda gobolka naga qaaday Mustar Cumar iyo booliskiina qaaday birmadka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa ilaa taliya cadaad niman wanaagsan bay ahaayeen waxay ahaayeen muwaadiniintayadii shaqada qaranka noo hayay mahad weyn baan u naqayaa taliya cadaad iyo nimankii booliska ahaa ee la socday oo ka mid yahaa nin Cumar la yidhaaho oonan hore u aqoonin oo qosol badnaa oo si habiyan ugu geeyay Madheera laakiin hadda waxa taliyaha laftiisa uu ila yar meeraystay taliyaha uu ila yar meeraystay taliyaha saldhigga dhexe inkasta oo aanu mahadnaqayo oonu iga soo saaray halkii qarmuunayd ee ay ku xidhnaayeen tuugta iyo maadharradu uu iga soo saaray markii uu xaaladayda ogaaday inaan ahay nin macaan leh markaa isaga taliyaha inkastuu yidhi ha hadlin oo dee ila meerayso yaa igu yidhi ila meerayso hoy waxaa leh siyaasaddaa leh adayga waan u mahadnaqayaa kelmad baad erey bixin baad samaysay saameyn weyn yeelatay oo la magac baxday ila meerayso ma islahayd kelmaddu saameynta intaa leeg bay yeelanaysaa maxaa isee ku timi kelmadda ila meerayso waxaan ka hoos qaaday nin la yidhaa maxamed cabdi muuse caburiye oo maalin nin ka damintay yidhi ma keenay lacagtii oy qoladii kalena yidhaahdeen wuu keenay inkastuu shaadhmadoobeeyey ayuu maxamed cabdi muuse yidhi waa ila meeraysaa 5 sano ka hor ayaan ereygaa guntay dabeedna dalkayga iyo dadkayga wanaagga jecel ayaan uga faa'iideeyay marka madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo kelmadaasi aad u soo qaadatay oo ku soo caan baxday maxaad ugu nisbaysay isaga marka kelmadda ila meerayso waxaan ugu nisbeeyay markay xaaladiisu noqotay ila meerayso aniga community ka horeynaya ciidamadiina daba maraya waa political science waa erey sharciga waafaqsan in uu madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland ka turjubo rabitaanka yaga ma aha inuu isagu iska fushado wax waa inuu rabitaanka yaga ka turjubaa waxaanan leeyahay mudane madaxweyne kumaan caayeen kumanaan cadaabeen waan ku tilmaamayay mujaahidiin baynu wada ahayn laxajeclayga ka haysay waan ku tilmaamayay haddaad sa garan weydayoodii xidhay dee ila meeraysadii un baatay wararka qaar waxay sheegayaan in intii aad xidhnayd madaxweyne Biixi habeenimada kamid ah kugu soo booqday intii aan lagu gudbin Madheera ma jirtaa in madaxweynuhu soo booqday inta xidhnay maya ma jirto inuu soo booqan sidaad og tahay booqashada aniga waa la soo daynayay laakiin qoladii kale xidhnayd looma soo daynayn ilaa ay waraaqa soo qaateen shalayto imika waa lagu xidhay waa markii ugu horeysay saad ii sheegtay arrin siyaasi ah lagu xidho arrintii lagu xidhay ma ka noqonaysaa mise weli waad ku saartaysanaysaa markii uu horeysay maaha Muuse Biixi markuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa ee dagaalkii sokeeyaha wuu xidhay waxaanu igu eedeeyey hawlaanan ku jirin oo igu yidhi waa Malaysia bil baan xidhnaa on political science xidhnaa waxaanan qol kula jiray maxamed faarax jira Allah u naxariiste iyo Dr. Cismaan Badmaax oo ayaan la xidhnaa xarig wax maanta igu horeysay maaha waxaan dalkayga xabad baan ugu soo bareeray in aan xuquuqdiisa inaan helo xuquuqdayda
xadhigna uga baqan maayo inkastoonu kala xusbi ahayn oonu shiish iyo khaaq kala ahayn may jirin halgan mooyaane waxana fahoo noo dhexeeyey oo dhaafsiisan dee labadaa garab ee sanam ahayd. ugu dambeyntii kelmaddaadii ila meereyso waxay noqotay kelmad dacaayada oo waxa weeyaan aada loogu dacaayadiyey haddii jaraale madaxweynaha qaranka ma is leedahay kelmadda aad keentay madaxweynaha qaranka lagu dacaayadinayo mar walba ee saamaynta intaa leeg yeelatay yah waa mid gef ku ah madaxweynaha? maya, dalku ila meereyso ku jira komishinka dooni mayno, diidnay, yeelnay, haddii baydankeeda leeyay kanaan qasab ku gelinayaa. waxaanu ka hadlaynay ina riya raac inaanu qasab ku gelinin. waanu iska marsaday intuuna xidhxidhay, laakiin waxaanu uga dhaqaaqayno oonu uga tegayno ma aha ha ku abshiro. gudoomiyaha gobolka aad iyo aad mahadsantahay. gudoomiyaha gobolka ee xusbiga mucaaradka ee wadani aad baan kuu soo dhaweyneynaa. bal ka war aragtidaada ku aadan in maanta uu soo baxay xubnihii ka xidhnaa xusbiga wadani iyo sidoo kale mujaahid ila meereyso. bismillahi raxmaani raxiim. horta aad iyo aad ba u mahadsantihi bulsha t v. runtii haddaan ka warramo dareenkayga iyo dareenka gobolka muxuu ahaa Maroodi Jeex, iminkaanu ka nimi soo dhoweyntii aan u samaynay xogayihii guud ee xisbiga iyo afhayeenka xisbiga iyo mujaahid cabdi ibraahim cabdille mujaahid ila meereyso. runtii marka horeba xadhigoodu xaqdarro u ahaa, markaa moral support anagoo u samaynaynaa caawa ka habaan ku soo dhoweynay runtii annaga iyo taageerayaashii ugu faraha badnaa ee gobolka Maroodi Jeex. marka horeba waanu dhaleecaynayna xadhigooda, iminkadana waanu dhaleecaynayna. waxaanu leenahay madaxweyne waddankan ood u soo dagaalantay waanu kuu qirsannahay, laakiin waxaan ku xidhayaa muxuu ahaa rayigii oo dastuurku inoo dhigay muxuu ahaa jamhuuriyadda somalilan in ra'iisul qowlka la hadlo. erey baan u xidhayaa ila meereyso mujaahid cabdi. arrintaa madaxweyne waan kugu dhaliilaynaa. waxaan kaloo kugu dhaliilaynaa weli may dhicin deynta jamhuuriyadda somalilan jirtay xogeeye guud oo xisbi iyo afhayeen xisbi in la xidho. runtii waxaanu leenahay arrintaasi waxay ahayd khalad weyn bay ahayd. arrintaasina runtii waxaan u aaminsannahay haddaanu xisbiga wadani nahay madaxweyne siyaad bare waxaad samaysay muu samayn. nin waxaan ku uri xidhan maxbuus nin kaloo soo booqda inaad xidhid runtii arrin aad iyo aad adduunyadina ay la yaabtay. sumcaddii yareedaynu iibinaynay dimuqraadiyaddii macaa madaxweyne waad ku ciyaartay. markaa runtii xadhigga mas-uuliyiinta xisbiga iyo mujaahid cabdi oo iminkana ah muxuu haysnaa xisbiga ka mid a intaba waan cambaaraynayna. cabdiqani xuseen abukar cabdiqani beelood bulsha t v hargeysa.